islaan gabar baa ninkeedii iyadu isqabteen way ka carootay waxay isiri ninkan ka tago guriga hooyada aad way lugaysay guriga aabaha aad bitir way lugaysay wadada iyadoo sii socota salaadii la gaaray imaamkii baa akhriyay salaad qiraa'o jahriya bay ahayd aayaadkan ku tukanay laqad khalaqna al-insana fi kabad markuu marayay ay istaagtay aayadiiba si fiican u dhuuxday laqad khalaqna al-insana fi kabad insaanka waxaan ku dhex abuurnay dhib. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh walaalayaal soo dhawaada barnaamijyadeena noo socday insha Allah ta'ala walwalka iyo walbahaarka ka hadlay waxaan dib ugu soo noqday walaalihii maamulka masaajidka Morocco ee Brisbane dalka Australia barnaamijkeena wuxuu inoo marayay wadaadku inoo sharaxay Sheikh Daawud Khayr Allah siiyo wuxuu inoo sharaxay oo ka hadlayay video hadda ugu dambeeyay يعني إن مر والبا مركي دي بنقول علينا عافية على كثير نقص وينك حرجيني إلى ولا لقيستين كل جود أو قصة إنه جودن بيس أهيد بقر كيف فرت لقى جوي سو مركز طالب بقول علينا باركت إن فرت لقى جوي وحقت كبد بعد سنة إتهاي لو قلوا إن شاء الله تعالى هذا لو حاول لنا شيخ خبر إنه نشر النوعية ذوي هي شيخ داود كسلو برنامج كني نسعودي أها والوركي والبحر كسب سرا شيخنا waxaan ogaaday inta hadda xataa aan cilaajkii waxyaabo noocaas ku dhex jiro waxaan ogaaday in walwalkii walbahaarka dadka uu aad ugu badan yahay marka bal waxaan jeclaan lahayn inaad na tusto waa maxay walbahaarku xagga yimaada asalkiisu see u yimaada bar sharaxaad badan laga sii noocyadiisa iyo qaabka dadku u qabto بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا sidaan hore u sheegnayba qaybteena hore musiibooyinka dadka ku dhaca siyaabo kala duwan bay u yimaadaan foomam kala duwan musiibooyinka qayb kamid waxa kamid ah qayb ku dhaca nafsada bini aadamka oo ay kamid tahay walwalka walbahaarka stresska iktiaab luqada rabta oo isticmaal depression qaababka ay doonaan iyo level kala duwan leh waxa laga yaabaa qof inuu bilow ku yahay waxa laga yaabaa qof inuu ku badan yahay waxa laga yaabaa qof inuu aad ugu tir badan yahay waxayna ku xiran tahay xaaladaha hadba qofku ku jiro iyo hadba inta iimaanka qofkaasi uu la eg yahay hadaynu marka si guud oo cajiiba u fiirino qaab ah walwalka iyo walbahaarka fikradaha dadku ka haystaan way kala duwan yihiin qayb dadka waxay u haystaan walwalkan iyo walbahaarkani inaan qofka muslimka aba ku dhicin hadaa muslimta kugu ma dhaco fikrada marka hadaynu qaadano waxay imaanaysaa qof muslim oo walwalsan ama walbahaarsan in shaydaan uga faa'iideysto yiraahdo islaamnimadaada waxba ka jirinba hadaad walbasho walbahaarto de muslimku ma walwalaman walbahaare muslimnati shaydaanku halka uga si faa'iideysto idan caawblanaynu fahamno waxaan waxay yihiin iyo qaabab halkay ku dhacaan iyo sida yihiin inta hore bal qaybta hore waxaan horta u baahanahay marka koowaad inaynu ogaano oo qof kasta inaga mid ah uu fahmo waxa jira wax la yiraahdo mashaa'ir al-insaniya ama qofka insaanka ah dareenka bini aadanimo qofku markuu insaan yahay inaguna insaan baynu nahay si kastoo muslim u tahay mu'min u tahay hadana insaan baa tahay bini aadan baa tahay Ilaahay abuuray dareemada bini aadamka ku dhaca iyo dareemka qofku dareemayo qayb baad ka noqonaysaa haba ku kala yaraado marka qofna kama marna mashaacirta ama dareenka insaaniga ah ee dadka insaanka ay dareemayaan dareemadaas ku soo maraya noloshaada qaybo kamid ah waxa kamid ah walwalka iyo walbahaarka oo qayb ka yahay dareemada aad ku soo maraya oo noloshaada aad experience garaynayso oo aad la dhil garaynayso xanuunadan ama qaabkan iyaga ah walwalka iyo walbahaarku hadaad fiiriso jirka bini aadamku laba waxyaalood buu ka kooban yahay qaybi waa jirka jismigeena lafaha hilibkan dhiigan waxaanaynu arkayno qaybtan muuqata qaybina waa soulka ama nafsada qofka bini aadamka xanuunadan iyaga waxay ku dhacaan nafsada bini aadamka qofka nafsadiisa ataagaan haday in badan nafsada hayaan marka oo nafsadaasi la dhilgareyn weydo oo qofku wixii xal uu kula dhilgareeyo u waayo ayaa waxay u soo gudbaan dhibaatadooda u soo gudubtaa jirka
way markaa ku kalifaan jirkaagii inuu dhib ku dhaco, in problem wadnaha kaaga dhaco, in dhiikar kugu dhaco, in cholesterol kugu dhaco, in wixii kugu dhacaan yani markaas jirka u gudubtaa. saas darteed ba ibn qayyim rahimahullahu ta'ala wuxuu lahaa 4 tahdumu al-jisma, 4 waxyaalood jirkaagay dilaan adigoon ogeyn haday kugu bataan way ku dilayaan, jirkay burburinayaan. wuxuu yiri tan koowaad waxa weeyaan alham walhuzn, walwalka iyo walbahaarka, tiiraanyada iyo walwalka badan iyo qofku walbahaarka tirada badan leh waqti badan markuu hayo jirkiisa burburinaysa dilaysa xataa. waljuu' tan saddexaadna wuxuu yiri waa gaajada, haday gaajadu ka tiro badato xad dhaaf noqoto qofka jirkiisa burburinaysa. kan afraadna wuxuu yiri wasahar, soo jeedka tirada badan leh habeenkii, qofku inuu habeenna badan isku dabciga soo jeedo waqti badan qaadato jirkiisa burburinaysa. sidaas darteed ba waxay ku dhacaan nafsada dadka bini aadamka. hadaad fiiriso marka inagu ka bini aadan ahaan qof kasto inaga naga mid ah نحن في الابتلاء سيدنا هرو شاغني قيبتنا هربا waxaynu ku jirnaa امتحان ادون كانو دنبا wuxuu yahay adduun daar الامتحان هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إلهي نولوش إيه جيريد أبوري سيو إذين كلا في شركين عمل في عاصمي الدون كان مركو الدار لا يسكو امتحامي. هذا السيد استحي طبيعة الدون كوحي تهي إن قفنا امتحانك كفكن كريم، إن قفنا كفكن كريم. سياسي درتد بآيات عشقنا إلهي سبحانه وتعالى وكيلها لقد خلقنا الإنسان في كبد. إنسان كوحان كلح أبورني لب كلح جرا هريره لم بيكاجرتا كسوقات مرك آيات واحد فهمتها إن لبفر بدن هريرها جيالان أدينا نحديث لو دغاي لبا أرين با كفران مرك inaad hesho dhibta kama fakan kartid, inaad hesho qaabad ula dhaqantood ula dhil garayso isagoo dhibkii jira aad la noolaato dhibkii oo hesho qaabad ula noolaato, inaad isku dhiibto oo khalaas wadada ka dhacdo ama tareen iska tuurto ama gaari isku disho ama ku waalato waad isdhiibto wax hal abad weeyda haba yaraatee wixii dhib ahaa bad xalin kari weeydi. qofku marka wixii dhil ahaa xalin kari waay halkaas uu maraya. ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri marka laqad khalaqna al-insana fi kabad fi ta'ab. waxa aayada laga fahmaya ay al-insan muslim ha noqdo, mu'min ha noqdo, munaafiq ha noqdo, hindu ha noqdo, jawish ha noqdo, krishtan ha noqdo, insaan ba hadaa tahay adduunkana aad ku nooshahay wuxuu dhibaba ku soo maray ka fakan meest. taa waxay marka meesha ka saaraysaa fikradeena qofka muslimka ah walwalka iyo walbahaarka stress kuma dhaco, khasab waxa uu ku dhaca qaabab kala duwan buu dadka ugu dhici karaa. qof baa walwalkiisa walbahaarkiisu diin yahay oo wuxuu ka walwalaya ka walbahaaraya ilaahay diintiisa u socon lahayd. mid baa walwalkii walbahaarkiisu wuxuu yahay adduunyo suu ku heli lahaa oo stress iyo wareer wuxuu ugu dhacaya sidoo adduunyo heli lahaa. mid baa walwalkiisa walbahaarkiisu wuxuu yahay xanuun isaga haya oo jirkiisa sidoo uga baxsan lahaa. mid baa walwalkiisa walbahaarkiisu wuxuu yahay awlaadiisa iyo yaani dhinacyo badan buu ku iimaanaya. laakiin muslim ahaan waxaynu aaminaynaa hadaynu fiirino adoo muslim ah xilli noloshaada kamida inay waxaan ku soo mari karaan. walwal baa ku soo maraya, walbahaar baa ku soo maraya, isla fakar baa ku soo maraya, isla hadal baa ku soo maraya. waa xaalad kamida xaaladaha dadka qofka bini aadamka ah uu soo mara. waxaana laga rabaa adigu marka inaad hesho qaabka aad ula dhaqmi lahayd iyo sida aad adigu u wajihi lahayd. sidaas darteed ayaa aayadan laqad khalaqna al-insana fi kabad waxay yiraahdaan dadka culimada taariikhda qaarkood waxay yiraahdaan islaan gabar baa ninkeedii iyadu isqabteen way ka carootay, waxay isiri ninkan ka tago guriga hooyada ah way lugaysay, guriga aabaha aad beter way lugaysay. wadada iyadoo sii socota salaadii la gaaray imaamkii baa akhriyay salaad qiraa'o jahriya bay ahayd aayaadkan ku tukanay laqad khalaqna al-insana fi kabad. markuu marayay ayay istaagtay aayadii ba si fiican u dhuuxday laqad khalaqna al-insana fi kabad. insaanka waxaanu ku dhex abuurnay dhib. خلاص اوكي انا انسان baan ahay guriga aabahay hadaan tago wuxuu dhib ah kulli waa soo gaari doonaan. hadaan wadada ku noolaada dhib waayimaayo, hadaan kii aan qabay gurigiisa ku noolaada dhib waayimay. haday saas tahay bay tir hadaba aan la dhil garayo gadaal bay isaga noqoto guriga xaafadayda ku noqdo hadii mar walba dhibtu meel walba ka imaanayso hada qaab aan u xaliyo waa inaan helaa. hadduu marka qofka bini aadamka ahi qaabka u fakaro waxaynu fahmaynaa in dhibkii aad ku soo marayo laakiin qaab aad ula dhil garayso in loo baahan yahay jiro. sidaas darteed ba hadaad fiiriso dadka ahlu jannaha ah ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu ku yiri wuxuu noo tilmaamay jannada iyo nicmadeeda
في سورة فاطر بهد بنو ملينيا جنات عدن تجري يحلونها تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير بإلهي markay description-kii jannadii qaybteedii uu sheegay ayuu wuxuu sheegay ilaahay dadka ahlu jannaha markay jannada galaan waxay yiraahdaan waqaalu alhamdulillahi alladhi adhaba 'anna alhazan inna rabbana laghafurun shakur alladhi ahallana dar almuqama waxay dhahay ilaahay baa mahad iska leh walwalkii walbahaarkii naga soo qaaday waxa dareemaysa iyagoo ahlu janna ah oo mu'miniin adduunka ku ahaa wuxuu walwaliyo walbahaaray inay adduunka ku soo marayeen idan walwalkii walbahaarku wuxuu dhamaanaya qofku markuu jannada galo laakiin in kastoo adduunkan ku nooshahay wuxuu noocaas ku soo maraya sidaas darteed baa waxa dareemaysaa nabiyullaahi Muuse calayhi salaam markii ilaahay soo diray fircawn loo diray waxa loo diray nin taaqi ah oo yiri ana rabbukumul a'la waxa ilaahay u diray nin adyaabaso oo dawlad dhan oo dhisana isagoo kaligiisa la diray idhab ila fircawn innahu tagha balil wixii ugu horeeyay وإلهي ويديستي waxay ahaayeen markaas sida suuratu Taha ku soo aroortay Ilaahay ku sheegay Nabi Muuse calayhi salaam wuxuu ogaa meesha uu aadayo wuxuu ogaa Fircawn iyo awoodiisa yaani adduun ahaan wuxuu haysto Ilaahayna uu ku kalsoonaa laakiin wuxuu dareensanaa xilliga dacwada uu wado oo ninka heerka gaar uu dacwada gaarsiinayo inaysan hawl yar ahayn ee ay wuxuun ma taqaanaa dib ah ka imaanayso sida darteed baa wuxuu qaala rabbi shrah li sadri ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني وحكوا هذا إله ويدستي وحيد ربي اشرح لي صدري إله لابتي ذا إي واسعي maxay tahay sababtu hadii qofka laabtiisu waasic tahay wuxuu koob gareynaya oo la qabsan karaa waxa la wax dhibaatada iyadoo jirto la qabsanaya oo qaadaya oo xambaaraya oo soconaya oo ka dhaxbaxaya laana xabadkiisa iyo laabtiisu waa waasic qofka kalena wuxuu ku noqonaya tayiq oo problemku adduunka kan ugu yarba inta ku dhaca buxal waaya إلهي سبحانه وتعالى النبي محمد صلى الله عليه وسلم مركو أمنا شيئين حكويري ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك ويسرك النبي محمد موانا صدرك يا لابت هذا كواسعين قريش يا كفار القريش يا قالذي يوحي لبك إيماني سياد أحمشه ودعوذانا أقدح بحض آذان أغفشل من إلهي موانا لابت كوحين أو لابت هذا كواسعين سيدا درت أخواني في الله وبانينا أغانو وحاني وحي كل عن نفط بني آدمك جسمك كما دعان نفسك كدعان مرarka qaar waxa la yiraahdaa axyaan waxa lagu magacaabaa nafs mar waxa la yiraahdaa ruux qaab magacay doonto ha yeelato marba waxba magacaabay ku soo aroortaa laakiin isku soo goobo naftu sideedaba waa sir ilaahay leeyahay sirrun lillah rasibigeeda waxay ka kooban tahay waxa ay tahay waxa weeyaan ilaahay un baa yaqaan subhanahu wa ta'ala jirka bini aadamka iskaana loo sameystay wadnahaaga dhibka jira waa la helayaa hadii problem ka taagan yahay dhaqaatiirtu iskaan bay saaraysaa calooshaada maskaxda hadii wax ka gaaraan jirkan bini aadamka awood badan baa ilaahay si aqoon ah baaritaan dheer kadib ay ku fakaraan laakiin markay nafta marayso ilaa xilligii nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam iyo waagi ka horeysay dadku naftan way ku wareersanayeen ilaahay waa tuqulaha fi surati isra wa yas'alunaka 'anir ruh قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا نبي محمد وحي كويدين يا النفتان يا الروح ذان وحي ككوبان تهي وحي تهي أرمي هذا روح ذو محي تهي قل الروح من أمر ربي واحد كتر هذا الروح ذاني أمر الله حقيقي يمدوي وأفير الله اللي هي سجى يقانا سجى أبو ري أدو مرك هداد بني آدم تهي وما أوتيت من العلم إلا قليلا علمي الذي مسين وحي رمويه نفتان علمي هذا وحبذا كما أقدم dad psychologistayaal oo isku dayeen dadka nafsiyan la hadla waajiraan laakiin wax ay ka garan karaan naftan bini aadamka illa xad way yartaa sidaas darteed haday naftu tahay sir ilaahay xaqiisa ka timid haday tahay wax ilaahay abuurtay hadii xanuunkani nafta stresska iyo walwalka iyo walbahaarku nafta bini aadamka uu taagayo daawadeedu waa in ilaahay xaqiisa laga raadshaa waa inuu qofku allihii naftan abuuray rasabigeedana haysta how to use keedana yaqaana isaga ciladaha gala iyo xanuunadeeda dabari kare inuu dhinaca u raashay aqliyan ahayn walaahada waxa dareemaysaa dadka hadaad fiiriso ilaa waqtigii hore adduunkan bilowday waxay isku dayeen xanuunada nafsiga ah stresska walwalka walbahaarka waxay isku day jireen xal u helaan si dhinac kasta Chinese-kii hore Greek-kii hore umadihii hore adduunkan soo noolaa qolo kasta waxba isku dayday وحلا لقوا أنت بدن ذاتك قيبا مركب والولان كنيسة هذا قالوا يرا خلاص بالكنيسة يعيسى يجيسس أنقال له
waxba ka soo waaye qaar baa intay baxaan inta baan aaminin marka walwalka iyo walbahaar ka tirabato saxarada iyo dadka saaxiriinta iyo magicianska iyo fortune tellerska iyo habraha xun koofaaliya iyo aadaan war maxay ahaayeen xagee la iga galay nafti mustaqbalka mugdi ku jira qaro halka la aada qolaaban waxaaba sameeyay markay wareerto walwalka iyo walbahaarku ka tirabato intay halka istaagtaan war adduunkan baa ku wareernay naftan an xurriyad مطلقة سينو خمر بابن اسكا عبيا بتوني فاوس أدونك وصلافينيا دراج بان لقيا كنيال بان دلق سينيا عربدان اسكو دريا أدونك ما ينا دافان ربا وحانا نسلافينيا والول كان كسو ساري واي قارب هالكان مرايا ما تورن سو اسكو دافيا راديا موسيق جم جع جق جع ما هذا ستريس كان سقف بينيا سعوي يدينا وحاس او دان markaad fiiriso cilaajka naftani inma huwa li khaliqah ilaahay agtiisu yaala ilaahay abuurtay buu jiraa idan xanuunada noocan ah ee ku dhaca qofka bini aadamka ee walwalkii walbahaarka nafsada ku dhaca diintan islaamku qaabay u dajisay loola dhaqmo haduu qofku tadabburaadka raacana biidnillah tajruba fiican ah oo uu daawoobayo ilaahayna subhanahu wa ta'ala ka qaadayo insha Allah ta'ala la socda qaybta ku xigta daawooyinka xanuunadan ay diinta islaamku u sheegtay iyo qaababka ay xalisay wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam ما شاء الله ما شاء الله بارك الله فيك وأحسن الله إليك وجعل الجنة مثواك